dad gob ah oo xishooda oo xaaraan ka xishooda oo boob ka xishooda oo waxaysan lahayn ka xishooda waxa yar oo haystaana ummadda kale la wadaaga waa dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu leedahay qof waxa yar oo haysto buu kii marti u ah iyo kii socota ah iyo kii ehel la ahba la wadaagi jiray isagoo haraadan buu koobka biyaha qofka kale oo Soomaaliga uga hormarin jiray hadda waxa soo baxay dadaan waxba deeqayn waxaa samaysmay damaacinimo horornimo ah oo qofku uusan wax kasta hadda oo Soomaaliya yaala hadday qaataan aan dhahayn in nagu filan waan haysanaa xataa waxaan aaminsanahay waxa dunida yaala Soomaalida dhaqamada ka samaysmay waxa dunida yaala haddii la siiyo inaysan kuna qancayn kuna joogsanayn بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Ruqayya Maxamed waxaanu markan halkan marka hore ka salaamaynaa oo aanu si diiran oo kaliya laab leh aan ugu soo gudbinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo hadalka iyaga maqli doonta oo na daawad doonta waanu rabno halkan inaanu barnaamijyo taxana ah oo ummadda Soomaaliyeed aanu rabno inaanu kula wadaagno xag wacyigelin fikrada soo gudbin aanu rabno inaanu ummadda Soomaaliyeed wax ku kordhino waxna ka kororsano inaanu wax wada kororsano inaanu ugu soo gudbino oo ka qayb qaadano dadkan walaalaha iyaga oo isugu yimid ama isku bahaystay ururkan aanu ula baxnay Samatalis walaalahay baan ku soo dhaweynayaa madashan aanu annagoo meelo kala duwan oo dunida kala joogna waqtiyo kala duwan ay noo tahay ayaan salaan iyagana u soo gudbinayaa kuna soo dhaweynayaa madasha waa walaal cabdirasaaq daad cabdirasaaq sheekh axmed maxamed cabdi caynab walaal saleebaan cabdi cali marka ku soo dhawaada waa wax wanaagsan oo lagu farxo inagoo caafimaad qabna dunida kala duwan joogna qof walba waqti gaar u tahay inaan galabta halkaan isku helno waxa si fiican xubnaha oo dhami u eegeen waxna uga yiraahdeen su'aashii ahayd maxay Soomaali meesha ay maanta taalo u taala maxaase xal u ah waxaan ku dari lahaa dhowr kelmadood si fiican baa arrinta maaragtay qofba meel uga istaagay anigu waxaan su'aashii la weydiiyay baan su'aal kale mid jawaab uga dhigi lahaa waxa weeye maxaa marka u horeysaba Soomaalida mudnaanta koowaad u leh si wax ugu hagaagaan maxaa horta mudnaanta koowaad say dhib uga baxaan maxaa mudnaanta koowaad u leh dhibaatada dadka Soomaaliyeed maanta meel kasta ay joogaan haysata oo waliba xagga ay ugu horeyso maamul xumada iyo hoggaan xumadu aniga waxa ila muuqataa markii taariikhda dhow aan ka soo qabto wixii burburkii ka dambeeyay inay burburkaas 33 sano mise 34 waxaan u maleynayaa 91dii markay ugu xumayd haddii laga soo bilaabo burburku iyo hoogii iyo halaagii iyo kalaxaadkii caasimadda Soomaaliya maaragtay ka dhacay iyadoo inta kalena dhibaatooyinku ka jireen laakiin meeshaas ahayd meeshii epic centerka u ahayd dagaalkii sokeeye waxa weeye dadkii wiilkii maalintaas jiray 10 jirka ahaa maanta waa 40 iyo 4 jir weyn 45 ban anigu waxaan arkaa dhibta
maanta iyo dayaca iyo hoogga iyo halaagga haysta tan ugu weyn midhaa inay tahay dadkaas aan dowladnimada ku barbaaray, ku caqliyaystay, ku hana qaaday, maanta qaangaar intaa laoga 44 jir ah inay yihiin ummad dowlad la'aan, qof walbowba sidaa rabtid yeel, waxaa rabtid boob, ciddaa rabtid ku tumo, waxaa dhici kartid dhac. waxaan u malaynayaa inay qayb ka tahay ama ugu weyn tahay dadkii sidaas caqliyad kale aan lahayn iyo garasho kale ayaan maanta waxaa laga yaabaa inay iyagu hogaamiyayaashii ka mid yihiin ama maanta kuraas ku fadhiyaan ummadda Soomaaliyeed ee looga talinayo. marka maxaa laga filayaa weeye dadka noocaasa, dadka intaas moogiyo wax kalaba aan aqoon oo qaarkood laga yaabo weli inay haystaan xataa hantiyo dad kale laga dhacay, guryo dad kale laga bilaqaysto oo laga boobay markii dagaalkii dhacay. maxaa laga filayaa weeye inay wax hagaajiyaan, wax wanaagsan baa laga filayaa mise inay wax toosiyaan? taasi waa waxyaalaha aanu arko inay dhibta ka mid tahay dayaca haysta Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira. marka waa nooca dhaqanka abuurmay oo ummadii hore Soomaalida ahaa siday u dhaqmi jireen iyadoo aqoonta iyo cilmigu intaan ka yaraa, iyadoo dugsiyada iyo meelaha waxbarashada loo doonto intaan ka yaray, iyadoo diinta iyo quraanku intaan ka yaraa, sidaan Soomaalidu uma dhaqmi jirin. xad aan la dhaafin oo qofka bila'aadanka ahi uusan ka gudbi karin oo xumaha iyo waxa hadda ka muuqda Soomaaliya laga xishoodaa jira, si kastoo qofku fakhri u yahay ama waxba u haysan ama uusan wax u baran. marka wixii ummadda hagi jiro marka aadaminimada ku salaysna iyo dareenka qofka bila'aadanka baan u malaynaya aniga iila muuqata fikirhaan inay meesha ka baxday. qofkiiba marakan meel uu ku joogsado oo uu damiirkiisu kaga qabto waxaa nolosha macaamilka la noolaashaha daris la dhaqanka xaq dhowrka dadka kale wixii ka qaban lahaa, wixii bari lahaa ama wixii u sheegi lahaa ama wixii ka joojin lahaa wixii xadguduba baaban meesha ka baxay oo dhaqan hor leh baa samaysmay bay aniga iila muuqataa. waxaan kale maxaa xal noqon kara weeye, waxaa kale dhibtu waxay kala noqotaan xalka u gudbin. dhibtu waxa weeye oo ka mid ah qabiilka walaalayaal ay awal si fiican uga hadleen inuu ka mid yahay burburka iyo halaaga Soomaalida haysta. qabiilku maahan kii aynu naqiinay in wax la isku taro, la isku kaalmaysto, deegaan lagu wadaago biyaha iyo xoolaha iyo maaragtay daris wanaagga iyo maaragtay la isku xeerin jiray ma ahan. hadda hoggaan xumadii iyo burburka Soomaaliya dhinac walba ka taabtay dadka ku soo baxay oo raba inay hoggaamiyaal ku noqdaan waxay aniga iila muuqataa inay 3 wax kaga faa'iideystaan. qabiilku waa kan u horeeya. maxay uga faa'iideysanayaan? waxay rabaan inay qabiilka awood ku helaan kuna haystaan. waxay kaga faa'iideysanayaan inay hanti ku boobaan bay qabiilka uga faa'iideysanayaan. marka qabiilkii wuxuu noqday wax la adeegsado si qof hanti ugu helo, kursi ugu haysto, kursi ugu helo wuxuusan xaq iyo xuquuq midna u lahayn qofna ku raadsado. waxaa kaloo dadka sidoo kale looga faa'iideystaa waxa weeye waa baahida. waxaa la yidhi qof baahani waa haddee qof hadduu baahan yahay dadku markii hore waa baahan tahay bakti looma cuno. waagi hore Soomaalidu iyadoo baahan bay dad goba ahaayeen, dad goba ah oo xishooda
oo xaaraan ka xishooda oo boob ka xishooda oo waxaysan lahayn ka xishooda waxa yaroy haystaanna ummadda kale la wadaaga waa dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu leedahay qofku waxa yar uu haysto buu kii marti u ah iyo kii socota ah iyo kii ehel ahba la wadaagi jiray isagoo haraadan buu koobka biyaha qofka kale oo Soomaaliga uga hormarin jiray hadda waxa soo baxay dadaan waxba deeqayn waxaa samaysmay damaacinimo horornimo ah oo qofku uusan wax kasta hadda oo Soomaaliya yaala hadday qaataan aan dhahayn in nagu filan waan haysanaa xataa waxaan aaminsanahay waxa dunida yaala Soomaalida dhaqamada ka samaysmay waxa dunida yaala hadii la siiyo inaysan kuna qancayn kuna joogsanayn waxa kaloo looga faa'iideysanayaa oo dadka nooca soo baxayo hoggaanka ummadda raba inay u qabtaan ilaa iyo hadda inta kana ama xilal u qabtaan ama kuraas ugu fariistaan waa jahliga iyo wax garasho la'aanta dadka ayaa iyaduna dadku mar haddaysan fahansanayn waxaan dawladda looga dhigayo waxaan xukuumadda looga dhigayo dadka xildhibaanada looga dhigayo dadka leeyahay waxba doorasho wax dooranaysin wixii oo dhan dadku haddii ay maaragtay fahamsanayn ama garashadaas intaa leeg waxaas oo ku cusub dhaqankana aysan jirin waa looga faa'iideysanayaa waxaan ku darsanayaa maxaa xalku noqon karaa waxaan u arkaa xalka in laga bilaabo fahamka dawladnimo iyo faa'iidada ay leedahay waayo dawladnimada ayaa wax walba aasaas u ah oo ay wax walbaana ka farcamayaan marka dhibaatooyinka in la xalliyo waa in dawladnimo fahankeed la abuuro waxaan rajaynaynaa inaynu inaga iyo intii kale walaalaha Soomaaliyeed oo ku soo xirantaaba inaynu taas sii wadi doono aynu bilownay ilaa iyo inta ina la gaarto hoggaamiyayaal daacad ah daacadnimo iyo damiir iyo dadnimo iyo wadajir sharaf iyo hufnaan ummadda ku hoggaamiya inay soo baxaan inay abuurmaan taas hadday wax ka bilowdaan waxaan rajaynayaa in dhibaatooyinkaas arrimahaas ay xalka dhibaatooyinka ka mid noqdaan waa mahadsantihiin